haddaynu sheekada dhinac kale u dhigno magaalada Saylac iyo guud ahaan gobolada Sanaag iyo Awdal waxay caan ku yihiin ciyaarta dhaqanka siiba ciyaarta Saylicida oo kale marka magaca muliye ee ku dhex jira gabadhaas waxa doonayay nimba doonayay iyadu waatan isaga dalbaday Soomaa iyadu waatan dambuliyaaba la yiraahdo isagu magaceegi u doontay kowrade hees way noqotay marka la isku yimid oo lagu ciyaaro oo dhaqana sida aad ka maqlayseen codka Maxamed Cismaan Hiriir waxa jirtay gabadh astaan u ahayd ciyaaraha Saylicida sidoo kalena sumad u ahayd jacaylka iyo ciyaaraha dhaqanka oo la oran jiray muliyo sida cilmi boodhari uu caan uga yahay gobolada Saaxil Togdheer iyo Hargeysa ayay iyana caan uga ahayd gobolada Sanaag iyo Awdal haddaba muliyo qof noocee ayay ahayd sidee bay sheekadeedu ay caan ku noqotay kuna hirgashay muliyo gabadh bay ahayd taariikh dheer ku leh ciyaaraha oo ciyaari jirtay waxaa laga soo qaadi jiray Lawicado buurta Lawicado ee madow oo marka Ingiriisku deganaan jiray ilaa halkan baa lagu keeni jiray taariikhda muliyo haddaan kaaga sheekeeyo waxaana loo keeni jiray oo caado u ahayd iyo dhaqan dadka dhulka degan rag iyo dumarba waa la soo galbin jiray arooska muliyo la tagi jiray taariikhdeeda la soo raacayay sida ay ku dhaqmi jirtay ama caadooyinka ay sameey jirtay ayay kamid ahayd marka muliyo goormay dhulka ku noolayd taariikhda waxay ku aasan tahay meesha la yiraahdo buurta madow Lawicado ka sokayso Lawicado meesha agteeda daar waxa jira buur yaro Lawicado ka sokayso bariga hore Ingiriisku deganaan jiray taariikh ahaan oo ahayd halkaas la tagi jiray oo laga soo galbin jiray arooska Khadiija Maxamuud Xargeeye waa hooyo ilaa 70 sano jirtay waxay ku dhalatay magaalada Saylac walina ay ku nooshahay waxaana ay ka mid tahay dadka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka loo daba fadhiisto maxay inooga sheegi kartaa iyadu sheekada caanka ah ee ciyaaraha Saylicidu ay hodanka ku yihiin ama lagu soo halqabsado ee muliyo gabar bay ahayd muliyo gabar bay ahayd Carabeed bay ahayd wakan marka waxay tiyaday doonaysa luul iyo doon ninkii jeclaa leenta uu luul buu doonay uu socday Bombay buu tagay Bombay markuu tagay waa ka jilaalkii dabaylihii soo dhaceen dabaylihii markuu badxirankii soo dhacay markuu badxirankii soo dhacay waa tawayday waa tale dooyihii reer Suuriya kuwii reer Saylac yimiday dooyaha Bombay ma bir baa ku jaban amba waan jeclaa inaan soo dhaxsado jilaalshaha jidka igu xayiray bisna ka soo leeyahay shimbiray lalay may duulisa ina tiirada casay may garab dhigtaa buu leeyahay oo shimbir buu warqad soo dhiibaya ya waa ka sheekhyada wax shiraaciye moodayay galabtii way sheekhyada aqaladu carshaan bay ahaan jireen ma jirin maxay idanay jiingadahan badan carshaan baa la dhisan jiray in sheekhyada wax shiraaciye moodayay maxaa dooyihii Bombay helay dooraysa galabtii fuulaysa casarkii dooyido de shiraac leh oo bahal de shiraaci ku xidhay aaga isayna soo socoto waa ka daynatii kolkay deeyma weyday ninkii ma waabeedin waan ku dhisaya qasaanadkii reer Awdal baa la galiyo 7 cisha timir cusbur ilaan de lagu xashiirati ina tood moodo dayax 15 yaabinkii dambe de looyo curfiga iyo udgoonka ka soo baxayaad yaabto waa ka aabaheed dhisay markuu dhisay waa ka ciyaartay oo la ciyaaraya deeyimid dikada ka soo dagay gabadha loo ciyaarayay waa gabadha luulka u doontay waa gabadha luulka u doontay luulkii xaafadoodii dhigtay ciyaartiiba ku dhacay heleley waambe haya kurumba way maqashaad halkiisi ciyaarta daran ku soo tiri ku sugay ku sugi waaye maxaad sugi weyde aynigaygo haya kurumba alla ku aaway alla way kan halka lagu kala tagay maxaa dhacay marka inta ka dhacay way dhaceen labada way dhinteen qabriga loo kala jeedshay yamuud baa ka dhacday gabadha muliyo asal ahaan yay u dhalatay halkaysay ka soo jeeday muliyo nimba waxba ku tilmaamaa qaar waxay ku tilmaamaan hindi qaar waxay ku tilmaamaan carab
qaar hindi qaar xaboosh laakiin naag waxay ahayd aqoontayda markay weydiiyeen muliyo naag wadaniyadan bay ahayd qabaayilkan la aqoon markaa habeenkaa ninkaasu dhalinyaradii uu doonay gabadha muliye la yidhaahdo ee uu saa ugu heesay ee uu istilmaamay habeenkaasa ugu horreysay miyaa oo dabadna markii way qaateen oo ciyaar ahaan bay u qaateen iyagaa samaystay dhaqankan iyagaa samaystay waa dhaqan la isku afgaran jiray afgarashada calaamad u ahaa oo la isku afgaran jiray